Qisadan waxay ka hadlaysaa qofka waalid caasigii inuusan marnaba guuleysanayn wax horumarna uuna gaadhayn. Qisaduna waxay u dhacaysaa sida tan. Waxaa hal meel ku wada noolaa hooyada ah. Hooyadaasi waxay wax u wada dhashay hal wiil, waxaana kusoo korisay nolol adag, waxaana la soo martay dhibaato aad u fara badan. Hooyadani waxay wiilkeeda ka biiri jirtay goob ay la fadhiisan jirtay gaadhi gacan, waxaanay ku dadaashay sidii wiilkeega uga dhigi lahayd mid ay ku nasato isna isku filan. Wiilkii waa weynaaday, waana iskugu toostay hadday shaqo tahay iyo hadday wax kale tahayba. Waxa uu guursaday gabadh. Gabadhaasi ma jeclayn inay la noolaato hooyadii, waxaanay ka codsatay inay hooyadii ka fogaadaan, guri gaarina dejiyaan, iyana ay ku noolaadaan guri gooni ah. Runtii lama garan karo farxadda uu waalidku dareemo xilliga ilmihiisa uu guursado, waana xilliga uu ku wildoogsado. Wiilkii waxa uu lacag u diri jiray hooyadii, waxa uu siin jiray lacag aad u yar, balse marwadiisa waxa uu siin jiray wax walba ay ka dalbato. Wiilkii maalin ayaa waxa u timid hooyadii, waxaanay ku tiri, wiilkaygiiow hooyo, hadda waxaan noqday qof da' ah, guriga keligay kuma noolaan karo, waxaan u baahanahay qof i ilaaliya oo i dhowra. Adna ubadkaygii baa tahay, adoon waxba isku qaban karin ayaan ku ilaalin jiray. Habeenkii ma seexan jirin ilaad adigu seexato, adoon dhergin anigu wax ma cuni jirin. Haddaan noqday da', miyaad i dayacaysaa? Markaan garabkaaga baahanahay miyaad i fogeynaysaa? Wiilkaygiiow hooyo, ii naxariiso sidaan kuugu naxariisan jiray, ii daryeel sidaan kuu daryeeli jiray. Miyaanan hooyada ahayn? maanan xaq ugu lahayn? maanan mudnayn inaad i daryeesho? Hooyo, hooyo, ii naxariiso. Hooyo hadalladaa kugula hadashay, maxaad filaysaa in ubadkeedu ugu jawaabay? Halkii uu naxariisan lahaa, soo dhoweyn lahaa, xasuusan lahaa sida ugu samirtay, waxa uu ku yidhi wiilkan caasiga hooyadii hadalladan aadka u xun. Hooyo, waa runtaa waxaan aad sheegayso oo dhan, balse waxaan been ahayn. Ani buuq ma baahnin. Hadda aniga xaaskaygu ma rabno qof saddexaad oo culaysna saara. Hooyo, gurigaaga joog oo halkaa geerida ku sug. 3 maalmood ayaa ka soo wareegtay markuu hadalkaas ku yidhi wiilkan caasiga. Isagiyo marwadiisu waxay u baxeen safar, waanay ku dhinteen safarkaas labadooduba. Hooyo waxay kula soo martay dhib aad u badan, adoon waxba qabsan karin ayay had iyo jeer ku ilaalin jirtay. Xilligaas hadday kaa tegi lahayd, bal ka waran xilligan ma jiri lahayd? Hooyada baari u noqo xilli walba, waxaadna xasuusataa markaad yarayd siday ku ilaalin jirtay, una ilaali sidaas si ka wanaagsan. Allow hooyooyinkeen dhowr, jannadana ka waraabi. Daawade, waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar, sidoo kale subscribe channelka haddii aad ku cusub tahay oo nagu soo biir. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay, siina sheer garee. Wassalaamu calaykum.